السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشرة قاعدين نحكي برنينا dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan lower limbiga magacyada lagu magacaabo anatomically oo saxda ah sababtoo ah marka lugta aad dhaqaajisid macnaa dhowr meel ay u dhaqaajin kartaa inaad gadaal u bixisid inaad hore u bixisid inaad dhanka oo lateral macnaa geeskan u bixisid dhanka dhexdana u bixisid marka magacyo waxay leeyihiin specific oo anatomy ah kaasoo marka qof examination lagu sameeyo oo ay tahay in si sax ah loo qeexo waxa qofkaas uusan sameyn karin iyo waxyaala uu sameyn karo marka lugtan oo hibka markaan fiirinayno macnaha waa in mar walba oo definition sax ah bixisa haddii aad ka hadlaysid hibka oo macnaha oo femarka dhaqaaqeeda iyo kneega hadaa ka hadlaysid ama ankle-ka ama foot-ka sababtoo ah waxaa laga yaabaa meeshan oo kale in oo uu yahay gadaal in uu bixiyo waxaa laga yaabaa kan hor in uu bixiyo so marka haddii aan fiirina hadda hip jointiga dhowr meel ayaa loo bixin karaa macnaha waxaan u bixin karnaa gadaal ama hor macnaha waxaan sameyn karnaa inaan hor u bixino waxaa loo yaqaanaa hip flexion haddii hor u bixino waxaa loo yaqaanaa hip flexion haddii gadaal u bixino waxaa loo yaqaanaa hip extension gadaal haddaan u bixino waxaa waaye extension hor haddaan u bixino waxaa waaye flexion hip extension sidoo kale waxaan sameyn karnaa in oo aan u bixino dhankaas oo geeska ah macnaa waxaa loo yaqaanaa lateral qaybtan dhexdan soo aadno waxaa loo yaqaanaa medial so marka haddii aan medialka soo aadno waxaan dhihi karnaa abduction waxay tahay inaad geeska u bixisid abduction waa inaad geeska u bixisid ama lateral adduction waxaa waaye inaad u bixisid dhanka medialka macnaa adduction waxaa with d abduction waxaa with b for bravo iyo d for donkey so marka abduction waxaan dhahnay in oo dhanka lateral inaad u bixisid adduction oo with a d na waxaa waaye in oo dhanka medialka oo soo bixisid so marka waxaa waaye saan soo sheeg marka adduction hip abduction hip adduction hip flexion and hip muxuu ahaa extension sidoo kale wuxuu sameyn karaa in oo u wareegsado macnaha hibka wuxuu sameyn karaa waxa loo yaqaan external rotation ama internal rotation waxaan sameyn karnaa in dhankaasaan u wareejino waxaa waaye kan internal rotation kan waxaa waaye external rotation macnaa wareegid oo banaanka usoo wareegtay saa arkayna marka boolkan oo femarka ayaa wuxuu usoo baxay banaanka haddii aan laabanan wuxuu noqonayaa in gudaha u laabto kaas waxaa waaye internal rotation haddii medialka u wareegto haddii banaanka usoo wareegtana waxaa waaye muxuu ahaa external rotation marka waxaa muhiim ah haddii oo lugtan oo meeshan jilibka haddaa oo qaloocasid oo bend aa ku samaysid meeshan oo niiga ah oo 90 degree nii aa u samaysid oo aa samaynaysid wareejin kana cagsigeedu noqonaya meeshan oo jilibka ah ama niiga asagan movementyaalka uu samayn karo waxaa waaye waxaa loo yaqaan knee flexion iyo extension haddii aan fiirino macnaha hadda niiga haddii aan markaan fiirinayna hip waxaan niri adduction aatay u adag tahay niiga in oo adduction lagu sameeyo sababtoo ah meeshan ayaa waxaa ugu xiran waxaa loo yaqaana macnaa medial collateral ligament iyo lateral collateral ligament waa macnaha waxyaala aad u adag oo seeda ah oo aad u adag oo celinaya in oo dhanka medialka uu aado ama qabka lateralka uu aado laakiin movementiga uu sameynaya waxaa waaye in uu sameeyo flexion macnaa knee flexion iyo knee extension macnaa markaad taagan tahay oo kale movementiga uu sameeya waxaa loo yaqaana extension in macnaa oo straight uu noqdo oo wax toosan uu noqdo markii gadaal u bixisid waxaa loo yaqaanaa knee flexion macnaa knee flexion dhankaas waa markaa gadaal u bixisid ilaa 90 degree uu tegi karaa oo gadaal u bixin karno niigaaga kaas waxaa loo yaqaan marka knee flexion haddii hore usoo bixin oo straight aan ka dhigno waxaa loo yaqaanaa knee extension marka haddii knee oo aan ka dhigno flexion sida meeshan aan sameynay oo kale oo meeshan aa u qabatid sida oo maxanaa handle oo kale maxaa albaabka geedka lagu fura oo kale daa u qabatid oo meeshan aa wareejisid adoo haysid muxuu ahaa knee flexion markii dhankan aa u bixisid oo muxuu ahaa oo lateralka ah haddii adoo oo meeshan jilibka haya oo qaybka lateralka ah u wareejisid dhankaasaan ka wadnaa meeshan movementiga uu sameynaya waxay noqonaysaa external rotation haddii dhankan oo aan dhahnay dhankan oo banaanka haddaa u bixisid macnaa haddii oo aa u bixisid dhanka oo lateralka ah meeshan hip joint movement uu sameynaya waxaa waaye internal rotation
internal rotation haddii gudaha uu soo celin dhankaasaan keenana asagoo macnaha oo flexion oo ku jiro kneega wuxuu noqonayaa external rotation. macnaha external rotation waxay tahay markii middle-ka u wareejisid adoo flexion macnaha oo kneega jointiga uu yahay. haddii dhan kale u wareejisna wuxuu noqonayaa muxuu ahaa kaas waxaa waa internal rotation, internal rotation, external rotation of the hip, internal rotation of the hip, external rotation of the hip. macnaha hipka wuxuu soo aadayaa dhanka oo banaanka ah adoo oo flexion macnaha uu ku jiro hadaa wareejisid. macnaha qofka haddii sariirta uu ku jiifto oo kale oo lugtiisa gadaal macnaha jilibka ka qaloocisid ilaa 90 degree kadibna marna bidix dhanka lateralka u bixisid marna middle-ka u bixisid kan wuxuu noqonayaa in uu sameeyo markii oo dhankaas u wareejisid in uu sameeyo muxuu ahaa internal rotation. dhanka markuu aadan wuxuu sameynayaa external rotation. waxaan u maleynayaa inaa fahamteen. haddii aan u imaano foodka asagana movementiga uu sameynayo waxa waaye in oo kor u aadi karo hoos u aadi karo. marka magacyada ay leeyihiin waxay tahay haddii hoos u aado waxaa loo yaqaanaa plantar flexion, haddii kor u aadana waxaa loo yaqaanaa dorsiflexion. kaas waa dorsiflexion, kan waa plantar flexion, dorsiflexion, plantar flexion, dorsiflexion, plantar flexion. movement kale uu sameyn karaa waxay tahay in uu aado dhanka oo lateralka ah macnaha isku qaluuciyo iyo dhanka oo medialka ah. kaasoo marka aan ku arki karno haddii kaasaan sameyn waxaa loo yaqaanaa eversion, dhanka lateralka haddii u wareegsado. hadduu dhanka medialka u wareegsado waxaa loo yaqaanaa inversion. kan waa inversion, kaas waa eversion. inversion, eversion macnaha ev waaye. kan oo inversionkan waxaa waaye in ev, eversion, inversion, eversion, inversion. movementii hore aan soo sheegnay oo ahaa plantar flexion iyo dorsiflexion, plantar flexion, dorsiflexion.